yaal markale galab wanaagsan ayaanu idin leenahay haatanna waxaynu u gudagelaynaa qaybaha kale ee idaacadda gaar ahaana wararka aan idiin hayno waxaynu ku bilaabaynaa ee magaalada muqdisho booliiska soomaaliya ayaana sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen eedaysanayaashii habeen hore ilaa shalay galab gudaha magaalada muqdisho ku dilay dad rayid ah iyo sargaal ka tirsanaa ciidamada asluubta dadka la dilay waxaa ku jira sidoo kale gabar iyo wiil walaalo ah oo askari ka tirsan ciidanka dowladda waa askar ka tirsan ay rasaas ku fureen moota bajaaj ay saarnaayeen si ay wadada oo markaasi jaam badan ama saxmad badan ay ka jirtay ay u furtaan afayeenka booliiska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan ayaa iga warramay tallaabooyinka ay qaadeen iyo sababaha keenay falkan ama falalka isdaba joogga ah ee dhacayay saacadihii lasoo dhaafay goor sii horreysay ayuuna qadka telefoonka igu warramay waxa magaalada muqdisho ka dhacayo waa dhacdooyin intooda badan u badan wax shil ah oo dadka bini'aadamka ah uu ka dhacaa markasta shilkaas ciidamadana waxay ka mid yihiin bulshada inteeda kale oo mar walba mid qaldamo waa la heli karaa mid saxanna mar walba uu taagan yahay laakiin muhiimaddu waxay tahay wixii dhacay in laga daba tagay oo lasoo qabtay lana haayo cadaaladda la horgeynayo taasaa muhiimaddu tahay taasaan waxay ku tusinaysaa in ay ciidanku dhankooda shaqadooda xagsadeen oo ay hayaan dadka rayadka ah ciidamada amniga waxay ka fishaan waa in amnigooda ay ilaaliyaan tababarada inta badan la siiyana dabcan waxay ku saabsan yihiin sidii dadka rayadka ah loo ilaalin lahaa oo ciidamada in badan ay saaxiib la noqdaan dadweynaha marka hadda iyagii dadkii rayadka ahaa inay beegsadaan oo dhowr habeen dad aan waxba galabsan la dilo maxaa sababay horta ereyga ciidanka amnigu waa isku mid haddana ciidanka booliiska soomaaliyeed shilalka dhacay waxay ka dhaceen laamaha amniga laan ka mid oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ah waana ciidanka ugu tirada badan dalka oo haddana ammaankiisa haya oo gobolada dalkana ku maqan marka qof dhif ah oo ciidanka ku jiro waxaa dhici karta taxadiir daro sameeya badana ciidanka booliiska soomaaliyeed waajibkiisa wuxuu yahay dembiga inay ka hortagaan ama ka daba tagaan tan iyo markii hadda dilalkani ay dhaceen ilaa habeen hore ilaa xalay maxaa tallaabo ah oo aad qaadeen walaal dhacdadii ugu horreysay oo habeen hore abaaro 2:45 ay dhacday dhacday 2:45 saacaday dhacday ilaa aan gacanta ku soo dhigno eedaysanihii oo og tahay goob bulshadu ay ku badan tahay ku baxsaday oo aan la garan karin in booliiska Soomaaliyeed ay raadiyaan hadduu yahay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ama taliyaha qaybta guud gaanka baarista dambiyada looma kala harin aniga aan kula hadlayaa u taagnaa markii la helay dambiilihii gacanta lagu soo dhigayna waa kan maanta cadaaladda loo waafajinaya waalidkii dhalay carruurtii goobta ku dhimatayna waxay aad u bogaadinayaan shaqada uu booliiska Soomaaliyeed u qabto xalay oo ugu dambeysay magaalada muqdisho waxaa lagu dilay nin dhalinyaro ahaa oo ka tirsanaa sida la sheegay ciidamada asluubta marka dilkiisa maxaa faahfaahin ah oo aad ka haysaa oo aad nala wadaagi kartaa waa sax allah u naxariisto mahad waan naqaanaa sarkaal ka tirsanaa hay-adda asluubtu ahaa annaga ciidanka haddaan nahayna bulshadan ka mid nahay maadna asagoo bulshadiisa ku dhex jira ayaa askari si kama ah xabad ugu fokiyey asagana waa lasoo qabtay askarigiina wuu xiran yahay gacan ku-dhiiglihiina gacanta lagu hayaa insha allah waxaa la waafajinaa cadaaladda taasna booliiska Soomaaliyeed waa u taagan yahay dad badan ciidamada waxay ku dhaliilaan markii ay dhibaato geystaan waa la soo qabtaa waa la hadlaa oo warbaahinta laga hadlaa laakiin wax muuqda oo dadku ku qancaan lama sameeyo arrintaa maxaad uga jawaabaysaa walaal waxaan u malaynayaa in qof kastoo Soomaaliyeed oo nool dalkii dibad meeshuu joogaba in la qanciyo ay ka fiican tahay in cadaaladda xaqa ah la marsiiyo shakhsiga dembiga galay maxkamadda wax lagu xukumo goobay leedahay u gaara waxaana la geeyaa eedaysanaha iyo dhibanaha oo cadaaladda horteedii ku kala baxa shakhsi kastoo Soomaaliyeed goobta uu joogo dalkii dibad ma ahan in la yiraahdo dhibanihii shalay aad aragteen dembiga geystay hadda la xukumay waa kana haddaysan ahayn maalin toogasho oo qofka inta lagu xukumay la toogtay dhaqanka Soomaaliyeedna wuxuu leeyahay xeer oo dadku diye kala qaadan karaan waa isku diidi karaan qaar xeer wuxuu dhex yaalaa in haddii qolo laga dilo inay dilato qaar wuxuu dhex yaalaa inay diye kala qaataan dadku waa walaalo waxa dhex marayna waa shaydaana keeni kara dembi kastoo dhacana waxaa lagu xaliyaa marxaladda markaas la joogo ay isku afkartaan labada dhinac marka insha Allah wixii hadda ka dambeeya bulshada Soomaaliyeed waxay qaadatay go'aan ammaanka in la wada leeyahay
afhayeenka booliska Soomaaliya gaashaanle Cabdifitaax Aadan Xasan oo ii warramaya goor sii horeysay ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay dhacdooyinkii iyo falalkii ugu dambeeyay ee ciidamada dawladdu ay markaasi ka sameeyeen magaalada Muqdisho. markaana golaha wakiilada ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland oo maanta uu furmay fadhigoodii labaad ayaa qoraal ka soo saaray kiis maxkamadda ka socda oo ah dacwadda Cabdimaalig Muuse Coldoon oo muddo ku xiran Somaliland. golaha ayaa qoraalkooda isaga fogeeyay inay qayb ka yihiin dibanayaasha ka dacwanaya Cabdimaalig, waxaana arrintaasi aan wax ka weydiiyay wariyaha BBC ee magaalada Muqdisho magaalada Hargeysa Sidiiq Maxamed Burmed. xasan horta maanta waxay ahayd furitaankii kalfadhigoodii labaad ee golaha wakiilada ee cusub oo maanta uu u furmay oo galay hawlahoogii iyo doodahoogii iyo ajandayaashooda wixii ay ka shaqayn lahaayeen. laakiin qodobka ugu weyn ee hadhayay waxay ahayd ay noqotay in ay xildhibaanadii ay ka hadleen inay iska bariyeelayaan dacwad lagu soo oogay wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon oo dacwadiisu ay ka socoto maxkamadda Hargeysa. marka xildhibaanada ayaa waxay iska bariyeelayeen qodobada lagu soo eedeeyay Cabdimaalig Muuse Coldoon oo ay iyaga qayb ka yihiin sida qoraalka maxkamadda loo gudbiyay, taasoo lagu sheegay in ay dhibana ka yihiin golaha wakiiladu. golahu marka hore wuxuu soo saaray qoraal arrintaa ku saabsan, markii dambena warbaahinta ay la wadaageen oo xildhibaanada ayaa u akhriyay. xildhibaan ka mid ah ayaa markaas soo bandhigay, waxaana ay sheegayaan in aanay gebi ahaanba dacwaddaasi qayb ka ahayn ayna garanayninna si allaala si loogu daray. marka waxay sheegayaan inay beri ka yihiin wax dacwadu ay u haystaan Cabdimaaligna aanay jirin. mid ka mid ah xildhibaanada oo markaa qodobadii akhriyay ayaa la wadaagay warbaahinta, waxaanu yidhi waxa maalin dhaweyd baraha bulshada ee media la soo geliyay warqad xeelaalintu qortay oo dacwad ahayd oo 5 qodob oo lagu soo eedeeyay eedaysanaha ama maxbuuska Cabdimaalig Sheekh Muuse Coldoon. mid ka mid ah ayaa ahayd inuu golahu dhibana ka yahay oo qodobka afraad eediisa ahayd. marka eedii baanu ka jawaabaynaa eedaha lagu soo oogay Cabdimaalig Muuse Coldoon iyadoo xeelaalintu ku sheegtay eeda afraad in golaha wakiiladu dhibana ka yahay eedaha loo haysto maxbuudkaasi. sidaa awgeed golaha wakiiladu waa hay'ad leh shakhsiyad qaanuuni ah oo ku aasaasan dastuurka si iskii ahna wax u dacweyn karta loona dacweyn karo si waafaqsan qodobka 16aad ee dastuurka jamhuuriyadda Somaliland. haddaba golahu wuxuu cadeynayaa in aanu dhinac ka ahayn eedaha loo haysto maxbuuska isla markaana aanu dhibana ka ahayn si xeerka waafaqsan. sidiiqow dacwadan hadda socota ee lagu soo oogay Cabdimaalig oo aan ognahay inuu xiran yahay haddiiba aanay qayb ka ahayn golaha wakiilada sidee markii hore loogu soo daray? xasanow haatan imaka Cabdimaalig Muuse Coldoon horta 3 bilood buu xiran yahay ilaa 2 toddobaad ee u dambeeyayna maxkamadda way ka bilaabantay dacwadiisu oo dhageysigeedii baa socda. marka intii horeysay waxaa socotay muddada 3 bilooda baadhis dhinaca dambe baadhista iyo xeeraalinta. ugu dambeyn xeeraalinta ayaa soo qortay kiiska maxkamadda lagaga hor eedeynayo Cabdimaalig. marka waa qodobo ka soo yimi oo garsoorka ka soo gaaray dhinaca xeeraalinta ayaana soo diyaarisay soo qortay eedeymaha loo haysto, saasana dhageysigeedu uu ku socdaa. marka xildhibaanada maanta hadlay laftigoodu waxa ay sheegeen in ay xeeraalinta laftigeeda ay su'aali doonaan oo ay u yeeri doonaan si ay u cadeeyaan goorta baarlamaanku uu qayb ka noqday ee dacwadda Coldoon. kaasi wuxuu ahaa wariyaha BBC ee magaalada Hargeysa Sidiiq Maxamed Burmed oo ii warramayay. welina halkaad naga dhageysanaysaan waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. dowladda Itoobiya waxay sheegtay in magaalooyin hor leh ay ka qabsadeen fallaagada TPLF, magaalooyinkaasi oo ka tirsan deegaanada Amxaarada oo ay dagaaladu markaasi ka socdaan ama ay ka dhaceen qaybo badan oo ka tirsan deegaanadaasi. TPLF dhankooda waxay iyaguna sheegeen in magaalooyinka laga qabsaday ay qaarkood uga baxeen xeelad dagaal. wasaaradda waxbarashada dalka Itoobiya ayaa xirtay sidoo kale dhammaan dugsiyada sare ee dalkaasi si ardaydu ay markaasi dadka beeralayda ah ee ku maqan safka hore ee dagaalka ka dhanka ah kooxda TPLF uga caawiyaan goosashada dalagyada beeraha. Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayaa iga warramay wararkii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya. xasan oo dagaalku u socdaa waliba si ka balaaran sidii hore ayuuna u socdaa deegaanka Cafarta oo iskala soo baxay oo hadda dagaalka maalmihii ugu dambeeyay socday waxa uu ka socday koonfurta Wallo, waqooyiga Gondar iyo waqooyiga Shawa, meelo kamid ah intaba deegaanka Amxaarada iyadoo ciidamada dowladda federaalka oo kaashanaya ciidamada gaarka maleeshiyadna ay sheegeen in haatan weerar ku hayaan fallaagada TPLF. sida muuqatana dagaalada ugu dambeeyay waxa ka muuqatay dowladda Itoobiya in ay fallaagada TPLF meelo ay haysteen ay ka qabsanayeen. dagaalka ugu badan hadda uu yahay dowladda
tahay mid ay ku doonayso in ay ku go'doomiso waa sida ay sheegeen xoogaga TPLF qaybta gudaha deegaanka Amxaarada ku jirta iyo deegaanka Tigray halka falaagada TPLF dhankoodana ay dadaal adag ugu jiraan guulihii ay dagaalka hore uga gaareen ay u sii adkeysan lahaayeen ama u adkeysan lahaayeen in jidgooyo aan lagu sameyn ay ugu hortagi lahaayeen 24 saac ugu dambeeyay marka cadow ma jiraan deegaano la kala qabsaday oo dhinacyadu ay sheegeen dawladda iyo TPLF ba in xasano wararkan ka helayna warbaahinta afka dawladda Itoobiya ku hadasho waxay sheegayaan in ay magaalooyin hore ciidamadoodu ka qabsadeen xoogaga TPLF magaalooyinkaasina waxay ku sheegeen Mahalmeeda Jafrarobit Harbuna iyo Makoy oo afarta magaalo toddobaadkii u dambeeyay dagaalada ka socday Itoobiya oo hoggaanka u hayay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed waxaad moodaa xasanow in ciidamada Itoobiya ay magaalooyin dhowr ah ka qabsadeen TPLF dhanka TPLFna magaalooyinkan laga qabsanay waxay ku tilmaameen mid ay xeelad dagaal uga baxeen balse warka uu dambeyn doono wararka naga soo gaaraya sidoo kale waxay sheegayaan dalka Itoobiya in dugsiyada sare ee dalka Itoobiya oo dhan muddo toddobaad ah la xiray sababtu maxay tahay xasanow waa sax weeye sidaad sheegtay warbixin barta Facebook ee wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Itoobiya lagu baahiyay waxa lagu sheegay in muddo hal toddobaad ah oo ku siman 6 ilaa 12 December in ay dugsiyada dalka Itoobiya oo dhan ay xirnaanayaan sababta dugsiyada u xirnaanayaan wasaaradda waxbarashada waxay ku sheegtay si ardayda dugsiyada sare u caawiyaan qoysaska dagaalada aaday oo colaada qaybta ka ah dawladda Itoobiya dhinacooda iyo kuwa dagaaladu ay saameeyeen muddadaasina marka ay ardayda dugsiyada sare ka shaqeynayaan beerihii dadka dhibaatada soo gaadhay ugu dambeyntii cadow marka dugsiyada sare ee deegaanka Soomaalida go'aankani ma saameynaya lagu xirayo guud ahaan dugsiyada Itoobiya xasanow deegaanka Soomaalida waa uu ka fog yahay goobaha ay dagaaladu markaasi ka dhacayaan balse sida uu BBC-da u sheegay wasiir ku-xigeenka waxbarashada dowladda deegaanka Soomaalida Cabdiqaadir Macalin Shukri waxa uu yidhi maadaama deegaanka Soomaalida beero badan oo ardaydu haatan ka shaqeyn karaan aysan ka jirin ardayda deegaanka Soomaalida waxay iyaguna toddobaadka qabanayaan olole isniinta bilaabmi doona oo ay ka mid yihiin sida dhiig shubid iyo wax la mid ah oo ay ardaydu taageero ugu muujinayaan dagaalka lagula jiro falaagada TPLF wasi wasiirku sheegay balse xasan wasaaradda waxbarashada ee dalka Itoobiya waxay sheegtay tan iyo markii uu dagaalka ka bilowday waqooyiga dalkaas Itoobiya in 300 oo dugsi ay ku burbureen in ka badan 2 milyan oo ardayna waxbarasho la'aan ay noqdeen wariyaha BBC-da Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay dalka Itoobiya wararka kale ee noo soo socdana dabcan waxaa kamid ah madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu ka digay in Ruushku uu weerar ku qaado dalka dariska la ah dalka Ruushka Ukraine hase ahaatee markan codbixintii ugu horeysay ee doorashada madaxtinimada ee dalka Gambia ayaa dadka dalkaasi saaka u dareereen iyadoo ay doorashadani dhacayso markii ugu horeysay tan iyo markii Yaxya Jaamac uu dalka ka cararay 4 sano ka hor madaxweynaha hadda talada haya Adama Barrow ayaa mar labaad u taagan xilka madaxtinimada Mr. Jaamac waxa uu markaasi uu haystaa oo la sheegaya in uu haysto dad yar oo taageersan dad badan oo reer Gambiana waxay aaminsan yihiin in doorashadan ay u gogol xareyso inuu ku soo laabto dalka oo uu ka soo laabto waliba musaafiris oo isagu isku galiyay oo u aaday dalka Equatorial Guinea gudoomiyaha haddaba dalada ururada bulshada ee rayidka ee Puntland ee magacooda loo soo gaabiyo Bunsa ayaa kamid ah dadka goobjoogayaasha ee lagu casuumay doorashadaasi waxaa la socda mas'uuliyiin kale oo ka tirsan guddiga doorashada ee dawladda Soomaaliya qadka telefoonka ayuu ugu warramay waa Faisal Ahmed Warsame والله waxaan u tagay doorashooyin ka dhacaya oo doorashada madaxweynaha oo u tartamayaan 6 xisbi inaan goobjoogayaasha caalamiga ka mid noqono halkaas aanan uga imid Soomaaliya marka dad Soomaali ah oo qayb ka ah dadka kormeerayaasha ma adiga oo kaliya mise waxa jira dad kale oo kula socda waxa jira Khadija Cusable oo ah commissioner ka tirsan guddiga doorashooyinka Soomaaliya ma adinka ayaa dalbaday inaad ka qayb gashaan oo aad ka mid noqotaan kormeerayaasha mise waa la idin soo dalbaday oo sida ayaa la idin kugu daray guddiga badana gudiyada doorashooyinka waa la casumaa oo iyagu adduunka dhan baa casuma laakiin anaga ahaan bulshada rayidka ah waxa weeye Opunsa waxaana la ku casumay hawshii doorashada ka dhacday Puntland oo quruxda badnayd oo 3 degmo ee shaqadan ka qabanay daraadeed waa abaalmarin lagu siiyay sidaas aan ku nimid oo lagu casumay inaan goobjoog ka noqono goobjoogayaasha caalamiga ah ee Gambia goobjoogayaasha aad ka mid tahay meeshiina waa aad joogtaa doorashadii hadda waa ay socotaa waxa ugu weyn ee laga faa'iidi karo oo dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidi karaan
karaan ama ay ka baran karaan maxaa ka mid ah ayaad is leedahay? doorashooyinka korjoogtaynimadooda waxyaabo badan baa laga bartaa. waxaa laga bartaa dalkaas iyo nidaamkiisa doorasho noocu yahay. waxaa laga bartaa dhaqamada dadka oo iyadana guud ahaan inaad baratid. waxa ugu muhiimsan oo kale qaabka isu dooranayaan anaga wax ajaa'ib nagu ahaa oo dadka dhan la yaabeen wax ay bilaabeen reer Gambia oo ka duwan waxyaabaha ay qalabka la isticmaalayo. tusaale ahaan pilot boxka oo ah sanduuqa wax lagu rido ayagu waxay suubsadeen sanduuq yar oo biro wadankooda ay ku suubsadeen oo gambaleel leh. sanduuqaasaa lagu codeeyaa. sanduuqana qofkana waraaq kuma codeeyo wuxuu ku colaynayaa kuushaas ayaa ma jirto xaansho la buuxinayo form waqti lagu dhumanayo marka qofka kuushaasaa la siinaya. kuusha wuxuu ku ridayaa sanduuqa wuxuu leeyahay gambaleel. qofka ag joogo maamulaya goobta ayaa maqlaya markuu sanduuqa dhawaaqo qofkaas uu codeeyay mar labaad ma codeyn karo. kuulahana asaa siinaya khad fartana waa loo gelinaya. ID cardkeeda waa la jaagarinaya qofkaas inuu yahay qof ka diiwaan gashan goobtaas in kale. markay tahay adugu 5 galabnimana waa lagu kala baxayaa. nin walba sanduuqiisii buu disanaya. goobjoogiisii baa jooga iyo goobjoogayaasha caalamiga ah iyo qofka wakiilka ururka halkaasay ku tirsanayaan ka bacdina qof walba uu ogyahay natiijadiisa si fudud ma shaki lahayn. laakiin dad badan waxay isweydiinayaan Faisalow sidee ku loogu codeyn karaa ilaa dadku waxay yaqaanaan waraaqo in lagu codeeyo oo musharaxiinta magacyadoodu ay ku qoran yihiin marka baltaa dadka u faahfaahi. waxaa lagu ogaanaya oo fudud horta meel qarsoon codku qarsoodi laakiin waxa yaala 6 sanduuq waxa ku qoran 6 kalar ay leeyihiin. waxa ku sawiran sawirada nimanka tartamaya oo madaxweynuhu tartamaya. qofku tii uu yaqaanay uu macnaha rabay uu codeyn lahaa taageerayaashiisa kamid ahaa buu codeynaya oo ku ridaya. saasaan ku dhamaataba wax shaki iyo mugdi ama ku jirtaba. sanduuqa waxa ku sawiran magaca qofka sawirkiisa iyo xisbiga calaamadiisa loogadiisa. ka waran marka hadda doorashadii waa ay socotaa goorma la filayaa in la soo gabagabay? waxay soo gabagabaysaa ilaa goobaha oo dhan 5 galabnimo. guud ahaan wadanka amnigiisu waa 100% aad u fiican yahay. Faisal Ahmed Warsame gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka ee Puntland ayuu kaasi ahaa oo ii waramayay. haddii aynu markaan dib ugu laabano qaar kamid ah dhageystayaasha BBC-da oo qodobada halka aynu soo dhignay aragtidooda ka soo dhiibta qodobada ay ka soo dhiibteen waxaa kamid ah arinta dalka Ethiopia dhageystahan oo lagu magacaabo Xuseen Xasan oo jooga magaalada Boorama waxa uu leeyahay waan ka xumahay dhibaatadii iyo dagaalada ka jira dalka Ethiopia in markaasi uu marayo in ardadii laga fasaxo iskuuladii. dhageystayaal badan ayaa dabcan aragtidooda ka soo dhiibtay oo dhageystahaasi uu ka mid yahay. dhageysta kalena waxa uu leeyahay dowladda Ethiopia waxaan ugu baaqayaa in iskuulada ay u fasaxdo ardada oo aan waxbarashada iyo dagaalada la isdhexgelinin. waa ay mahadsan yihiin welina halkaad naga dhageysanaysaan waa BBC. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ka digay in uusan aqbali doonin qadka cas ee Moscow ay dejisay iyadoo Ruushku uu qorsheynayo sida la sheegayo duulaan uu ku qaado Ukraine. madaxweynaha Mareykanka waxa uu intaa ku daray in tallaabadaasi ay noqon doonto mid aad u adag haddii Ruushku uu ku duulo dariskiisa Ukraine. Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ayaa warbixintan noo faahfaahinaya. warbaahinta Mareykanka ayaa shaacisay saraakiisha sirdoonka dalkaasi inay ka cabsi qabaan in horraanta 2022 uu dhaco dib u qabsashada Ukraine. walaaca sirdoonka Mareykanka ay muujiyeen ayaa kusoo beegmaya xilli ay Ruushka iyo Ukraine ay xadkooda soo dhoobeen ciidamo gaadhaya 94,000. hase yeeshee toddobaadkani waxaa la filayaa in wadahadal dhanka muuqaalka ah oo xiisada lagu dejinayo uu dhex maro madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhiggiisa Mareykanka Joe Biden. wuxuu warbaahinta u sheegay inuusan marnaba aqbalayn khadka cas in laga soo tallaabo. hase yeeshee Biden ma uusan sheegin tallaabooyinka rasmiga oo Mareykanka qorsheynayo inuu qaado. saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Ukraine ayaa dhankooda ka digay toddobaadkan inuu miiska u saaran yahay cunaqabatayn dhaqaale oo ka dhan ah Ruushka. khamiistina wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in Mareykanku uu uga hanjabay dalkiisa cunaqabatayn horle kadib markii uu la kulmay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken. wargeyska Washington Postna wuxuu qoray Kremlin inay diyaarisay ciidamo gaadhaya 175,000 oo sanadka dambe weeraro dhowr jiha soo qaadayo. wasiirka gaashaandhigga Ukraine Oleksiy Reznikov wuxuu sheegay inuu rumaysan yahay Moscow xilliga ay dagaalka soo qaadi rabto inay tahay dabayaaqada bisha January ee sanadka cusub. xiisada u dhaxaysa Ruushka iyo Ukraine oo aan ahayn mid cusub 2014 dagaal uu Ruushka ku qaaday kooxo gooni u goosad ah oo ay taageerto dowladda Ukraine waxaa ku dhintay ugu yaraan 14,000 oo qof. wixii intaa ka dambeeyeyna xiisada u dhaxaysa Washington iyo Moscow ee salka ku hayso xaaladda Ukraine waxay ahayd mid cirka isku sii shareeraysa. mahadsanid Cadow.
waxaa lagu jiraa xuska maalmaha dadka lixaadkooda uu dhiman yahay qiyaastii 1 bilyan oo ka mid ah dadweynaha adduunkana waxa ay ku nool yihiin nooc ka mid ah lixaadlida xilli intooda badan ay ku nool yihiin wadamada soo koraya dhanka Soomaaliyana waa dhaqanka Soomaaligana waxa markaasi dadku ay ku mahmaahan lixaadli ma ahan awoodli markaana waxa mahmaahadaasi tusaale u noqonaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi oo ah wiil dhalinyaro ah oo degan magaalada Hargeysa kaasoo oo markaasi culays ka haysto xagga maqalka hase ahaatee arrintaasi kama hor istaagin in uu horumar sameeyo Cabdiraxmaan waxa uu hindisay oo maamula shirkad habka casriga ee online-ka ku shaqeysa waxaana uu shaqaaleysiiyay shaqaale badan wariye Xasan Galeyd oo goobtiisa booqday ayaa warbixintan ka soo diray dad bay iibsaday markii la iibsaday lacagtii ka baxana waan farxay kadibna waxaa ku dhiiraday in aan internetka dhankiisa wanaagsan ka faa'iideysto waa dadaal ka dhashay faquuq lagula kacay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi oo ah wiil maqalka naafaka markii uu dhameeyay waxbarashada dugsiga sare ee dadka maqalkoodu uu xadidan yahay waxa uu dadaal u galay sidii uu shaqo u heli lahaa laakiin taasi ma ay dhicin markii uu garwaaqsay inaanu helaynin shaqo waxa uu ka fakiray qaabkii uu halabuuri lahaa ganacsi gaar ah oo isagu leeyahay suuqa waxa ka soo aasaasay dalaba sano ka hor ayaa meelo badan ba shaqooyin weydiistay laakiin waxaa caqabad igu noqotay oo wuxuu suryeeyay inaan ahayn maqalka naafaka amaana waxba maqahan sidaa darteed aniga ayaa dib u fikray oo waxa aan ku fikray sida aan ganacsi u samaysan lahaa sidaa darteed maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday in ay hooyaday ii keentay kabo iyadu igu soo taagasho ii soo iibisay kabihii baa deetayga yaraaday markii ay kabihiga yaraadeen baa waxaan ku fikray inaan sii iibiyo markaa dad badan oo garanayaan weydiistay inay iga iibsadaan laakiin waa iga cudur daarteen intaa kadib aniga oo niyad jabsan ayaan sawir ka qaaday kabihi markaan sawirkii ka qaaday ayaabaan soo dhigay WhatsApp-kay oo ay dad badan u xidhnaayeen kadibna waa la iga iibsaday anigu sama filan in la iga iibsanayo dad bay iga iibsaday markii la iga iibsaday lacagtii ka baxana waan farxay kadibna waxaa ku dhiiraday in aan internetka dhankiisa wanaagsan ka faa'iideysto oo aan ku shaqeysto oo aan ka mid noqdo ganacsatada online-ka wax ku iibsada waxa uu furtay xafiis ganacsi oo hab online uu wax ugu iibiyo isagoo magaca meheradana ka dhigay Deaf Boy oo macnaheedu uu yahay wiilka maqalka naafada ka meheradayda Deaf Boy online oo suuq ku shaqeeya qaab casri oo online ay muddada ay jirtay aan halka ku soo gaadhay waa 2 sano gudahood labadaas sano dhaqaale ku soo gaadhay maaha waxa la caawimay ka iga soo gaadhay ama dadii caawiya ama dadii gacan qabtay kabihii maalintii aan iibiyay fikradda ugu dhaliyay ee dhiirigeliyay ayuun baan si aan soo celin kol baan soo kordhinay ayaa maatalkan soo gaarsiiyay oo muddo sanad ah waxaan qof gurigooda ku shaqeynay oo muddo sanad ah waxaan la kulmaya caqabado waxaan la kulmaya dhaqaale yar khasaare wax walba la kulmay macalkiisa ma bixin karay laakiin muddo sanad ah waxaan leeyahay xafiis la u soo hagaago shaqaale i gaar ah qalabkaan ku shaqeeyo mootooyinkii baan leeyahay qalabkaan ku shaqeeyo miisaantiisa waxaan aniga gacantayda ku sameeyay oo maaha qalab casri ah intii aan goobtan ku sugnaa waxaan la kulmay Cawaale Jaamac oo ka mid ah macaamiisha shirkaddan isagoo ii sheegay sababtu meheradan ku doorbiday sababtaha uu wax goobsan waxa wasfahmna ma kuma smaaqna boos karna ma wasfahna shaqaalaha meheradan ka shaqeeya waxay gaadhayaan 15 qof oo isugu jira kuwa maqalka naafaka iyo kuwa dhaga qaba oo Saara Cismaan Caalin ay ka mid tahay run ahaantii waxaan ku faraxsanahay in aan ka mid ahay maanta shaqaalaha Deaf Boy online market maadaama aan anigu ahay qof ka duwan shaqaalaha oo bartay luqadda sign language-ka iskuna xidhi kara dadka maqalkooda xadidan yahay iyo dadka aan maqalkooda xadidnayn run ahaantii taas waxay Cabdiraxmaan u tahay anigana ii tahay muhiimad gaar ah oo in isku xidho ama ay sida shirkadaha kale aanay u haysan qof turjumaan in uu u helo maxaa la yiraahdaa si ka duwan sidii hore oo ah in turjumaan la helo labadii bulshada isku xidhan u noqdo run ahaantii dadku waxay noo imaadaan iyagoo ganacsigooda doonaya oo baahidooda doonaya oo marka hore la yaabanayo isla sad wax ugu soo iibsataan balse waxay naga noqdaan iyagoo ku faraxsan in ay meesha turjumaan u joogo oo jeclaysan in waqtiyo badan ugu soo noqdaan
codkaasi wuxuu ugu dambeeyey warbixintii wariye xasan gallayr uu ka soo diray magaalada Hargeysa. markana ugu yaraan 26 milyan oo qof ayaa la halgamaya helitaanka cunno xilli ay markaasi dadkaasi wajaheen abaar ka dhalatay roob la'aanta ka jirta geeska Afrika. xaalka abaarta ka taagan waqooyiga Kenya iyo Soomaaliya iyo koonfurta Itoobiya ayaa la saadaalinayaa inuu sii jiri doono tan iyo inta laga gaarayo bartamaha sanadka 2022 ee nagu soo aadan. haddaba warbixintan waxaa soo jeedinaysa Fartuun Ismaaciil. tani waa abaartii ugu xumayd ee soo marta gobolka tan iyo sanadkii 2011. halkani waa Wajeer oo ku taala waqooyiga Kenya. waa bulsho xoolo dhaqata ah intooda badan. deegaankii iyo iyagiiba dhib ayaa soo gaaray. ceelashii mar hore ayay gureen. saameyntana meel kasta ayaa laga arki karaa. qaybtan ka tirsan waqooyiga dalka Kenya waxaa ku dhintay 70% lo ah. halkan oo kaliya maaha meelaha ay abaartu saameysay. qaybo badan oo kamid ah bariga Afrika ayaa sidoo kale ay saameysay abaarta. Soomaaliya oo Kenya la diris ah ayaa iyana xaalad bani aadanimo oo degdeg ah ku dhawaaqday. koonfurta Itoobiya ayaa iyana ay saameysay aad si looma hadal hayo maadaama lagu mashquulay colaadda ka jirta dalkaasi. qubarada ayaa iyaguna ka digaya in xaaladdu sii adkaan karto. tani waa sida halkan looga nool yahay oo ah xoolo dhaqasho. in aad xoolo aad leedahay dhaqato ayaa wax walba ah. waa isha dhaqaale ee ay dadku ku maareeyaan noloshooda. shukri maxamed waxa uu ka mid yahay cuqaasha deegaanka. waxa uu isku dayayaa in uu dadka caawiyo. waxa uuna tusay meesha xoolaha dhinta la geeyo. soddon lo ah ayaa hartay. 140 waa ay dhinteen. lo'dan hartay ee aad halkan ku aragto ma jirto meel kale oo ay daaq ka heli karto. waqtiga laga soo kabanaya abaar ee haddana mid kale la gelayo ama fatahaad dhacda ayaa noqotay waqti gaaban. taas ayaana sabab u noqotay in bulshooyinka ay ku adkaatay in ay soo kabsadaan. sida dad badan oo reer guuraaya ay qabaan ayaa Axmed Ibraahim oo xoolo dhaqataa waxa uu rajaynayaa in xoolihiisa qaar u badbaadaan. xoolahan ilaahay baa shilisay asoon baan haddana laayna. waxa ilaahay u maadayna wax aad wax ka qaban kara malaha. laakiin maalin walba xoolo badan ayaa ka dhinta taasi oo muruga ah isaga oo xaaladuna ay ku adag tahay. Axmed oo kaliya maaha xoolo dhaqatada ay xoolahooda ku dhamaanayaan abaarta jirta. waxaa sidoo kale sharaxaysa sida uu xaalkeedu yahay Saadiye Mahadgare. nool baan ahayn xoolaha haday dhintaan dadkii wuxuu ku sugan yahay maxay qatar buu ku sugan yahay. kolay irsaaqada ilaahay baa bixiya laakiin qatar baa lagu sugan. boqolkiiba 70 bulshada ku nool halkan ayaa waxa ay ku tiirsan yihiin xoolahooda. maalin walbana waxaa ka dhimanaya qaar ka mid ah xoolahaasi. ma jiro daaq, mana jiraan biyo ay cabaan xayawaanadan. Fartuun Ismaaciil way mahadsan tahay. warbixintaasi ayayna soo jeedinaysay. markaana wararka ciyaaraha haddii aynu eegno marka laga soo tago ciyaartii dabcan tabinteeda aad dhegeysaneyseen ee West Ham iyo Chelsea ee kusoo dhamaatay 3-2 ay West Ham ku badisay. waxaa dhacay ciyaaro kale oo waxaa kulmaya Newcastle iyo Burnley way wada ciyaarayaan. Southampton iyo Brighton waa is arki doonaan. Wolves iyo Liverpoolna waa ay kulmi doonaan oo ciyaaraya dhexmari doonta. Watford iyo Man City-na waa iyaguna waa ay wada dheeli doonaan. dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii dunida iyo maanta waa naga intaa. tan iyo berri 7 subaxnimo haddii Allah uu dal yiraahdo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabad gelyo.